sida ala socotaan markii ay burburtay dawladeena dhexe 1991 waxa la burburay wax kasta oo la xiriira dawladnimada oo kamid yahay aqoonsiga qaran ee mideysnaa waagii hore dawladii dhexe waxay bixin jirtay waxa la yiraahdo Tesaro Municipio oo dadka ay qaadan jireen kaasoo adeegyada iyo aqoonsiga u ahaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed laakiin nasiib xumo markii dawladeena burburtay ma jirin wax aqoonsi qaran oo mideysan ah laakiin dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyay madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse waxay ku guuleysteen in sanadkii 2023 si rasmi ah loo bilaabo bixinta aqoonsiga qaran ee mideysan runtii aqoonsiga qaran muhiimad kala duwan ayuu leeyahay bulshada qaybadeeda kala duwan su'aal ahaan dadka ama qofka caadiga ah wuxuu markuu ID-ga helo uu awoodaa in adeegyada kala duwan sida waxbarashada caafimaadka qaadashada driving license-ga xareysashada baasaboorka Soomaaliga furashada bangiyada in adeegyadaas oo dhammaan uu si sahlan asigoo isticmaalay ID-giisa oo ku helo sidoo kale dadka adeeg bixiyaasha ah oo weyn ganacsatada sida bangiyada oo kaleeto waxay eegana uu ka caawinayaa ID-gan in ay aqoonsadaan macaamilkooda ay si sahlan ku aqoonsadaan waxa ogtiin ID-gan muddadii oo maqnaa dhibaato badan ayaa haysata bangiyadeena iyo dhammaan dadkeena ganacsatada ah in dadka ay la macaamilayaan ay aqoonsadaan